waad salaamantiin asxaabta kusoo dhawaada barnaamijkeena 1by1 oo aanu kusoo qaadano wararka iyo warbiximihii ugu dambeeyey. waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee kubadda cagta, sidoo kale isbedelka cusub ee ku yimi koobka adduunka kooxaha. haddaba haddii aynu ku bilowno, xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa si rasmiya u shaaciyey in laga bilaabo sanada 2025 koobka adduunka kooxaha ee FIFA Club World Cup ay ka qayb qaadan doonaan 32 kooxood. haddaba sistamka ama qaabka hadda loo ciyaaro koobkan ayaa waxaa ka qayb qaata 8 kooxood. 8 kooxood waxay kala yihiin 7 kooxood ee ku guuleysata championka laga ciyaara qaaradaha adduunka iyo sidoo kale wadanka martigelin doona ama wadanka martigelinaya kooxda ku guuleysata horyaalkiisa. waxaana koobka ku tartami jiray 8 kooxood. haddaba hadda waa la bedelayaa, balse sida uu sheegay madaxweynaha FIFA ee Infantino, waxa uu sheegay in sanadkan lagu qaban doono koobka adduunka kooxaha ama uu martigelin doono wadanka Morocco. waxaana ka qayb qaadan doona kooxihii ama sidoo hore ayuu dhici doonaa oo 8 kooxood ayaa ka qayb gali doona, balse sanada 2025 laga bilaabo koobka adduunka kooxaha waxaa ka qayb gali doona 32 kooxood oo waxa uu noqon doonaa sida koobka adduunka oo kale. waxaa ka qayb gali doona kooxo badan oo kaliya hadda waxaa ka qayb qaata 8 kooxood oo kaliya, balse sanada 2025 waxaa ka qayb qaadan doona 32 kooxood oo waxaa lagu sameyn doonaa dib u habeyn. sidoo kale weli lama sheegin qaabka loo ciyaaraya iyo kooxaha ka qayb qaadan doona iyo sidoo kale kooxaha cusub ee kusoo biiri karaya koobka adduunka, maadaama ay hadda ciyaaraan kooxaha ku guuleysta koobabka qaaradaha sida Champions League, qaaradda Aasiya, qaaradda Yurub, qaaradda Afrika iyo sidoo kale qaaradaha kale ee adduunka. waxaana 8 ku noqota kooxda ku guuleysata horyaalka wadanka martigelin doona koobka adduunka kooxaha. dhinaca kale, ciyaartooyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona iyo sidoo kale xulka qaranka Spain ee Sergio Busquets ayaa si rasmi ah u sheegay ciyaartooygan inuu ka fadhiistay kubadda cagta qaramada. haddaba ciyaartooyga Sergio Busquets ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii ama jiilkii dahabka ahayd ee xulka qaranka Spain, kuwaas oo ku guuleystay koobka adduunka ee sanadii 2010 ka dhacay wadanka South Africa. sidoo kale Sergio Busquets waxa uu kula guuleystay wadanka Spain sanadii 2012 Eurodii. haddaba Sergio Busquets oo ka mid ah ciyaartooyda ugu fiicneed xulka qaranka Spain ayaa si rasmi ah u sheegay inuu ka fadhiisan doono ama uu ka fadhiistay u ciyaaridda xulka qaranka Spain. ciyaartooygan ayaa usoo ciyaaray xulka qaranka Spain sanadihii ugu dambeeyey, gaar ahaan laga soo bilaabo sanadii 2008 iyo wixii ka dambeeyey, oo ciyaartooygan waxa uu ka mid ahaa ciyaartooyda ugu cadcadeed ee u ciyaartay xulka qaranka Spain, gaar ahaan ciyaartooydii jiilka dahabka ahayd sida ciyaartooyda Xavi, Iniesta, Ramos, Pique, Puyol, Iker Casillas, David Villa, Torres iyo ciyaartooy kale. sidoo kale haddii aynu eegno taariikhda koobka adduunka, kadib markii uu xulka qaranka Faransiisku markii labaad oo xidhiidh ah u baxay ama uu gaadhay finaalka koobka adduunka. haddaba waxaa jiray xulka qaranka Faransiiska ka hor 4 xul oo iyagoo sameeyey ama qoray taariikh. haddaba xulalkaasi waxay kala yihiin ama waxay awoodeen inay 2 jeer ama wax ka badan oo xidhiidh ah ay gaadhaan finaalka koobka adduunka. haddaba xulka ugu horreeyay ee arrinkaas sameeyey waxa uu ahaa xulka qaranka Talyaaniga, oo xulka qaranka Talyaaniga waxa uu gaadhay finaalkii koobka adduunka ee 1934 xilligaas oo uu kaga badiyey 2-0 xulkii la odhan jiray Slovakia. sidoo kale sanadii 1938 koobka adduunka ee ku xigay waxa uu awooday xulka qaranka Talyaanigu inuu gaadho finaalka koobka adduunka, xilligaas oo uu 4-2 kaga badiyey xulka qaranka Hungary. xulkii labaad ee arrinkaas sameeyey ee gaadha finaalka koobka adduunka 2 jeer ama wax ka badan oo isku xiga waxa uu ahaa xulka qaranka Brazil. haddaba xulka qaranka Brazil waxa uu soo gaadhay finaalka koobka adduunka 1958 xilligaas oo uu 5-2 kaga badiyey xulka qaranka Sweden. isla koobka adduunka ee ku xigay kaas ee sanadii 1962 la qabtay waxa uu mar labaad awooday xulka qaranka Brazil inuu iska xaadiriyo finaalka koobka adduunka, xilligaas oo uu 3-1 kaga badiyey xulkii qaranka la odhan jiray Czechoslovakia. mar kale ayuu sameeyey xulka qaranka Brazil inuu 2 jeer oo xidhiidh ah uu soo gaadho finaalka koobka adduunka, waxayna ahayd markii kale 1994 xilligaas oo ay isku arkeen ama iskaga hor yimaadeen xulka qaranka Talyaaniga kulankii finaalka, balse kulanku waxa uu kusoo dhamaaday barbadhac 0-0 ah. kadibna labada xul waxa ay ku kala baxeen rigoorayaasha oo xulka qaranka Brazil ayaa 2-3 ku qaaday xilligaas. markii labaad ama koobkii adduun ee xidhiidh ah ee labaad ee xulka qaranka Brazil oo soo gaadho waxay ahayd isla koobkii adduunka ee ka ku xigay ee sanadii 1998 la qabtay, balse xulka qaranka Brazil waxaa 3-2 kaga badiyey finaalkii koobka adduunka xulka qaranka Faransiiska. sidoo kale Brazil koobka adduunka ee ka ku xigay waxay awoodeen inay mar kale soo gaadhaan finaalka koobka adduunka, oo waxay iska soo xaadireen xulka qaranka Brazil finaalkii 2002. sidoo kale xilligaasi waxay ahayd koobka adduunka markii ugu dambeysay ee uu ku guuleystay xulka qaranka Brazil. 2002 koobka adduunka finaalkii waxay 2-2 kaga badiyeen xulka qaranka Jarmalka. xulkii saddexaad ee arrinka isaguna qoray waxa uu ahaa
xulka qaranka Holland. Haddaba xulka qaranka Holland waxay iska xaadiriyeen finaalka koobka adduunka sanadii 1974 balse may awoodin inay ku guuleystaan ama ay qaadaan koobka adduunka oo kulankii finaalka waxaa 2-1 kaga badiyay xulkii la oran jiray Jarmalka Galbeed. Sidoo kale xulka qaranka Holland waxa uu soo gaaray koobka adduunka finaalka isla sanadii ku xigtay ama koobka adduunka ee ku xigay waxayna ahayd sanadu markay ahayd 1978. sidoo kale xulka qaranka Holland waxaa laga badiyay finaalkii koobka adduunka xilligaas waxaana 3-1 kaga badiyay xulka qaranka Argentina. xulkii ugu dambeeyay ee arrinkaas sameeya ama xulka afraad ee sameeyay arrinka oo 2 jeer ama 3 jeer oo 2 jeer oo xiriir ah ama ka badan soo gaaray finaalka koobka adduunka waxa uu ahaa xulka qaranka Jarmalka. haddaba xulka qaranka Jarmalka markii hore waxaa jirtay inay u ciyaari jireen xul loo yaqaanay xulka qaranka Jarmalka Galbeed iyo sidoo kale xul loo yaqaanay xulka qaranka Jarmalka. haddaba markii ugu horreysay xulka qaranka Jarmalka soo gaareen gaar ahaan waxa uu ahaa xulkii loo yaqaanay xulka qaranka Jarmalka Galbeed waxayna soo gaareen finaalkan 1982 xilligaas oo 3-1 uu kaga badiyay ama koobka adduunka uu kaga qaaday xulka qaranka Talyaaniga. markii labaad ama koobkii adduun ee ka ku xigay waxay soo gaareen sidoo kale finaalka waxaana soo gaaray xulkii qaranka Jarmalka ee Galbeed balse xulka qaranka Argentina ayaa sanadii 1986 3-2 kaga badisay. markii ugu dambeysay ama markii saddexaad oo xiriir ah xulka qaranka Jarmalka uu soo gaaro finaalka koobka adduunka waxay ahayd sanadii 1990 xilligaas oo ay awoodeen ugu dambeyntii inay 1-2 kaga badiyaan xulka qaranka Argentina oo ay ku guuleystaan koobka adduunka. haddaba xulka qaranka Faransiisku kadib markuu iska xaadiriyay finaalka koobka adduunka sanada 2022 sidoo kalena uu ahaa xulkii ku guuleystay koobkii adduunka ee ugu dambeeyay ee sanadii 2018 waxa uu noqday xulkii shanaad ee taariikhda koobka adduunka soo gaaray finaalka koobka adduunka 2 jeer oo xiriir ah ama ka badan waxaana hayeen xulalkii ka horeeyay Talyaaniga, Brazil, Holland iyo sidoo kale xulka qaranka Jarmalka. halka ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta Madrid ciyaartooyga Karim Benzema kadib markuu dhaawac uga soo baxay liiska ciyaartooyda ku jira ciyaartooyda u ciyaarta xulka qaranka Faransiiska koobka adduunka sidoo kale ciyaartooygan uu doonayay inaanu ka qayb qaadan ama uu ka xaadirin finaalka koobka adduunka ayaa hadda waxaa la sheegay in madaxweynaha wadanka Faransiiska Emmanuel Macron uu doonayo ciyaartooyga Karim Benzema inuu joogo oo sidoo kale soo xaadiro finaalka koobka adduunka. sidoo kale Emmanuel Macron waxa uu u wicii doonaa ama uu yeeri doonaa ciyaartooyda dhaawac iyaguna ku maqan sida ciyaartooyda N'Golo Kante iyo Paul Pogba. haddaba ciyaartooyga Karim Benzema markii hore go'aankiisu waxa uu ahaa inaanu ka qayb qaadan ama aanu aadin finaalka koobka adduunka balse hadda waxaa laga yaabaa ciyaartooyga Karim Benzema kadib markuu uu waco madaxweynaha wadanka Faransiisku inay suuragal tahay inuu ku qanco arrinkaas oo ka qayb qaato ama uu soo xaadiro finaalka koobka adduunka ee maalinka xadda ka dhici doona wadanka Qatar. sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa taariikhdu marka ay tahay 6 bisha February waxay u safri doonaan wadanka Morocco si ay uga qayb qaataan koobka adduunka kooxaha maadaama ay kooxda Real Madrid ahayd kooxdii ku guuleysatay koobka Champions League qaaradda Yurub waxay matali doontaa qaaradda Yurub waxayna ka qayb qaadan doontaa koobka adduunka kooxaha kaas oo la sheegay in lagu qaban doono ama uu martigelin doono wadanka Morocco. ugu dambeyntii ciyaartooyga Joao Felix oo doonayay inuu ka tago kooxda Atletico Madrid ayaa hadda waxaa la sheegay ciyaartooygan inuu doonayo kooxda uu ku biiraya ay tahay kooxda PSG. ciyaartooygan Joao Felix oo kusoo biiray kooxda Atletico Madrid sidoo kalena ay kooxda kasoo bixisay qiimo aad u sareeya kaasoo ahaa 120 milyan oo euro ayaanu ciyaartooygani ka helin amaanu si fiican ula ciyaarin kooxda Atletico Madrid. sidoo kale kooxda Manchester United ayaa isku dayday ciyaartooygan inay la soo saxiixato ama ay la soo wareegato xagaagii hore balse kooxdu waa ay ku fashilantay. haddaba ciyaartooyga Joao Felix kadib markuu soo bandhigay koob adduun aad u fiican markuu ciyaaray xulka qaranka Portugal waxa ciyaartooygan hadda la sheegay inuu doonayo ka tagitaanka kooxda Atletico Madrid. sidoo kalena markii hore ay ahayd kooxda Manchester United kooxdii ugu cadcadayd ama kooxdii hogaaminaysay tartanka loogu jiro ciyaartooyga Joao Felix. haddaba hadda waxaa la sheegay inuu ciyaartooygani doonayo inuu ku biiro ama uu ciyaaro kooxda PSG. sidoo kale kooxda Atletico Madrid ayaa dalban doonta ciyaartooygan inay ku fasaxdo qiimo aad u sareeya maadaama ciyaartooygan 120 milyan oo euro ay ka soo bixisay waxay mas'uuliyiinta kooxda Atletico Madrid ciyaartooygan ku fasaxi doonaan ugu yaraan qiimo lagu qiyaasay 100 milyan oo euro.